بريايا ووطني وقل كدايا ووطني وقابريايا ووطني وقل كدايا munaasabad ballaaran oo taageero loogu muujinayo xisbi mucaaradka isbedel doonka ay wadan ayaa lagu qabtay magaalada Burco munaasabadan ahayd mid ay goobjoog ka ahaayeen dadweynaha u tiro badan ayaa waxa sidoo kale ay dhalinyaradan iyo waxgaradkan sheegeen inay taageero hiliyo hobol la garab taagan yihiin xisbiga wadani hadaladii munaasabadaasi laga soo jeediyay waxa kamid ahaa in lagu taageero xisbiga wadani ee xisbiga midnimada iyo cadaalad اعترافka cid keeni karta waxa weeye labada diblomaasi ee ka sharaxan xisbiga wadani ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo ku-xigeenkiisa اعتراف ma keeni karto cid aan dalkaba ka dhoofi karin ninaan baasaboor ku dhoofo iyo fiiso ku dhoofo lahayn oo aan hadii sababada ilaa la kaxeeyo aan gaari karayn waxa la wuxuu keeni karaya ma jiro waxaynu ogsoonahay oo in caaw u quus goynaynaa qoliyo xisbiga kulmiye ka tirsan oo ku warwareegay dhalinyaradan iyo kuwa kale oo lamida ku wareegayo soo qoolaaliyo isle codka haydisiino kulmiye codkaasiye kuwaas aynu quus goynayna waxaynu leenahay ninkan quus aqoon naftiisa oo quusa baa leeyidii ku quusta dibna ha u soo qoolaaliyina waqtina ha iskaga luminina dhalinyaradan iyo kuwa kale ee lamidka aba waxay go'aansadeen inay u hibeeyaan codkooda xisbiga wadani waxay dhalinyarada waxa la isku xirnaado Umar iyo Ciyaal anigu maanta Umar iyo Ciyaal baa madaxnimo bay ugu horeeyay mar hadii la ilaanto telefoon baa kugu soo dhacay waa kuma kaas waxaan u sheegayaa nimanka madaxda doonaya Umar iyo Ciyaal tolkiin baa idin haya waxa la gaaray xilligii guusha ayaa inagu soo dhawaatay waxa loo tartamayaa xisbiyo xisbigan la tartamaynaa iyadoo codkii la gaarin dareemay in laga dareeray oo aanu waxba haynin maskabkiisina halka ka sii akhristay marka inaga waxa leenoga baahay waqtigaas isticmaalaya taatiko ama xeelado fara badan meelo badan buu inaga soo galaya dhalinyarada ayaa koow ka ah marka waxaan doonayaa inaan dareensiyo inaad digniin weyn qabtaan oo ay idin iska ilaalisaan meelaha ducaynta ama xisbiga taagta daran ee laga dareeray taatikada iyo xeeladaha uu isticmaalaya inaad ka feejignaataan shirkaygani caawa wuxuu daaran yahay inaanu taageero mug iyo miisaan laba kula hor taaganahay xisbiga isbedel doonka ee la yiraahdo Orange Revolution ama xisbiga wadani ee mucaaradka maanta waxaan baa u diray qodba joogta Umar iyo Ciyaal ee dalka meel kasta ay joogaan gudiyada dibadda inay ka qayb qaataan campaign-ka ay ugu ololeynayaan xisbiga wadani bartaagaan haday tahay cod haday tahay hanti inay isbarbaagaan xisbiga wadani codkoodana ay siiyaan Umar iyo Ciyaal wadani baan ku ogaa meel ay kaga baxeen ma arag laakiin caawa waa quusgoyn aad u quusgoynaysaan dhalinyarada loo soo magacaabay campaign-ka ee ku dhex wareegaya reerka ee kala qoqobaya isku diray geesta kale munaasabadani waxa ka hadlay mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin ka tirsan xisbiga wadani ee gobolka Togdheer waxayna sheegeen inay si mugle ay u soo dhaweynayaan taageerayaashani kuna faraxsan yihiin cududooda inaydan u hogaansanayn marna adeecayn diideena inaad garab istaagtaan xisbul xaakimka kulmiye intii farxad bay noo tahay haddaanu nahay xisbiga wadani inaad ku beenisaan fariintii gobolka Togdheer ka baxday idinkoo muujinaya cududa Ciyaal iyo Umar Caynaashe inaad taageersan tihiin xisbiga wadani saddexda xisbi qaran mid wala tijaabiyo kulmiye wala soo tijaabiyo maanta waxay la tahay inaanu ahayn kulmiye kii mar labaad ay bulshada dooran lahayd door labaad bulshada doorashada kulmiye diidoon naca mar dambe kulmiye bulshada dooranayso ama munaasabadan quruxda badan laga faa'iideysanaya ee Umar iyo Ciyaal ay cududooda taageeray wadana ku muujinayaan waxaan leeyahay nin kasta ha cadhooday cid waa madaxweyne wa Khalid Bakayle fogaan araga xorta Star TV Burco.